in la yareeyo intii la yareyn karo in laga keeno wasiirada laga soo xulo golaha wasiirada ama in wasiirada laga soo xulo banaanka laga keeno waxaa saacadii soo dhaafay qabsaday dood ku saabsan muddada uu ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare sharciyan u haysto inuu soo magacaabo golihiisa wasiirada Abkaate Cali Xalan oo la hadlay Goobjoog TV ayaa sheegay in shuruucda dalka uusan ku jirin qodob ra'iisul wasaaraha ku cadeynaya inuu soo dedejiyo magacaabista golihiisa wasiirada shuruucda dalka waxa ugu weyn dastuurka kala baarana dastuurka kuma jirto meel lagu cayimay muddada ra'iisul wasaaraha laga doonayo inuu soo dhiso xukuumaddiisa ayuu yiri Abkaate Xalan sidoo kale Abkaate ayaa sheegay in dhismaha dawladdu ay muhiim u tahay in ra'iisul wasaaruhu uu waqti badan qaato si xukuumad tayo leh soo dhiso Abkaate Cali Xalan ayaa ra'iisul wasaaraha Xamse Cabdi Bare kula taliyay in xukuumaddiisu uu soo koobo wasiiro tayana leh oo soo magacaabo ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare ayaa hadda wada xulashada xubnaha uu soo magacaabayo golihiisa wasiirada kuwaas lagu wado inuu maalmaha soo socdo uu ku dhawaaqo hadalhaynta magacaabida golaha wasiirada Soomaaliya ayaa hoogeystay saacadii la soo dhaafay maadaama ay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare u dhamaatay 30 cisho laga sugayay inuu soo bandhigo liiska xubnaha xulashada golaha wasiirada